شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن. الحمد لله والفضل لله والمن لله والشكر لله يا ذا الجلال والإكرام أكرمني يا ذا الجلال والإكرام أكرمني يا ذا الجلال والإكرام أكرمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد باني سلام يا waxaan u taaganahay haddaan tala soomnahay inaan dhalinyarada dhiiri gelino. insaanku laba u qaybsamaa baa la yiraahdaa, ama aragtiyihiisa indhaha wax ku eegaya waa laba ama waa negative ama waa positive wax ku daawada. waxaa jira wax la yiraahdo ciinu dubaaba, isha duqsiga, وعين النحلة إيش الشنيدة. وحنا كسونا الشنيدة محي دور فريستا محي وحكا قادتا محي ملب كينو سميسا وحي داغدا أما ملب معانا استعمالنا عافمات كينو إلهين إنو شيء وحي دور فريستا أوبح نوعية دي سكرة الدوان درت بلا آدم كجعليهين أودو قلبي داغدا. duqsiga maxaa lagu yaqaanaa? wasakhay ama wax bilaadanka ay ka didayaan oo urtiisu aad ay u liidato duqsigu ayuu fadhiistaa. haddaad saaxiibadaba isha duqsiga haddaad ku eegto magaalada degan tahay ama halkaad ka soo jeeday Soomaalinimada haddaad ku eegto waxaad oran boorama yaa akhraba loo shaqaystaa. waa nacam kelmad positive weeyaan. qofkan shaqaysan shaamacbo laakiin negative uga jeedaa wuxuu leeyahay boorami aakhir waa loo shaqaystaa. yani booram waa magaalo aan maadartay shaqo aan lahayn, waxba aan lahayn, rajo aan lahayn. ujeedada saas u jeeda. laakiin haddii ereyga sidiisa loo qaato dee waa haddaanad shaqaysan heeder waxba qabsan mayso. cumar bin khadaab kii masaajid ku jiray ee lahaa ilaahay umaan barayaaba waxa la yiraahdo kaga soo saaray. adeer haddaba haddaad ishaada duqsigaa qabiil haddaad ku eegto odood isku eegto laangaab baad noqonaysaa. because aniga iguma filnaba geda buursi iguma filna. maxay qaban karaan? waxba ima qaban karaan. adeer xitaa Soomaalinimada wax laga faano oo la yiraahdo Soomaali quraataana waxba iguma filna. maxaa igu filan? aniga islaamnimo wax igu filan. islaamnimo ayaa waxaan ku noqonayaa qof laandheera laakiin ku noqon maayo qabiil yaron ka soo jeedo ku noqon maayo. adeer qofku waxa loo baahan yahay hamigiisu weynaado. hamigaa weynaado inaad weynaataa loo baahan ha noqon hamigaagu hamiga duqsiga yuuna noqonin, laakiin noqo caynu naxala. qof noqo qof naafica. yaraan kuugu daro waxa laga wariyaa kumbani baa waxa weeyaan wuxuu nin shaqaale ah ayuu kumbanigan shaqaaleysiiyay. waa kumbani aad u weyn. ninkaa shaqaale waxayna waxba hanoo shaqayn, laakiin ninkaa wax ka baro. waxaana sanadan ayay internship siiyeen. sanadka dhan waxba ma qaban jirin, nin buu wax ka baran jiray, mishaarkan uu qaadan jiray. ninku markuu sanadkii dhamaystay uu kumbanigii ka tagay. kumbanigii baa loo yimid oo maxaad faa'iideen baa leen maxaad faa'iideen? ninkan tabacabaad geliseen, waxbaad barteen, aqoon baad barteen, maantana si dhib yar ayuu iniga tagay. waxayna waxbaan soo gelinay, aniga waxbaan faa'iidnay, bulshadana waxbaan ku darnay. waxna qofka markuu bulshada ku noqdo bulshada wuxuu ku noqonayaa isagoo aqoon leh oo bulshadii wax tari karo ku noqonayaa. waxay yiraahdeen ninkan waan hagaajino akhlaaqdiisa iyo khuluqiisa iyo suluugiisa aan dhisnay. bulshada marka uu ku soo noqdo saameyn buu ku yeelanayaa. waxay yiraahdeen waxa isku xidhan bulshada hagaagayga iyo dhaqaalaha ayaa isku xidhan. bardaw fiirso waxa leeyahay bulshada hagaagtay waxay keensan kartaa inuu dhaqaalaha kor u kaco. bulshada xumaatay muxuu keeni karaa? inuu dhaqaaluhu burburo. u fiirso habeenkii waxa laga yaabaa kaliya inaan meel mari karin
adigoo naftaada u baqaya ama in moobilkaaga laga qaataad u baqayso haye habeenka horaad u xaroonaysaa maxaa dhacaya markaa dhaqaalihii aad habeenka soo jeedahay suuqa aad gelin lahayd wax badan aad soo iibsan lahayd maxaad u diidaysaa ama inay inantu baxdo maxay ka baqaysaa in dhibaato la gaarsiiyo adeer wanaaggeenu wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaheenna haddaan doonayno inaan noqonno gobolka awdal iyo selal gobollada ugu sarreeya haddaan doonayno inaan noqonno waa inaan akhlaaqdeena hagaajinaa nabaddeena aan hagaajinaa oon inagu aan ka shaqaynaa sidii qofka bila'aadanka ee martida inoo ay sunuu nabadgelyo habeenkii ugu mari lahaa isagoonan ka baqayn qolo afka duubatay oo moobeel ka qaadata balu yar fiirsada maalinta waxbaa dhacay la yidhaahdo waxaa ma kala dhaqaaqaan adeer noloshaadu maxay ku xidhan tahay nabadda inaad ilaaliso shaqadaad raadinaysa maxay ku xidhan tahay nabadda inaad ilaaliso hadday nabadi jirto shaqo waad helaysaa hadday nabadi jirto fikir uu imanaya hadday nabadi jirto horumar baa imanaya sideedaba aqoonta inaad qof wax siiso aad habeen baahi haysa ama laba habeenaad ka dhergisaay waxa ka fiican qofka inaad aqoon barto dhalinyarada waxaan ku ammaanayaa waxa u beereen dhinaca maadarta waxbarashada in dadka tabaalaysa inay caawiyaan waana muhiim u fiirsada arday badan oo jaamacadda dhigta ayaa waxaad arkaysaa in qaarkood ay reerkoogu reero danyara ay yihiin qaarkood qurbajoog baa ka bixiya qaarkood dhalinyarada ayaa is-abaabuloo ka bixiya jaamacadda qaarkood way waayaan mas-uuliyaddaasay saaran tahay anay saaran tahay aday ku saaran tahay iyaday saaran tahay dhammaantiin wayna wada saaran tahay marka waxaa loo baahan yahay inaan bulshada u fikirno u dadaalno wax u qabanno hadaf aan yeelanno tale isku mid aan qaadanno nabadda aan ka shaqayno aynu hore u soconno dib looma soconayo hore hadda loo soconaya isma eegayna haddaan is eegno innaga wax iska sheegaynaa hebel si fiican uma soo feedhan hebel wallaahi maanta shamiiskiisu ma kaawadaysna wallaahi dhalxanti baa ka muuqda waxaa lima seexantahay heblaaye ma arkaysaa wallaahi shalmadday xidhan tahay waa qooshkii baa ka muuqdaa aderyeen innagu is eegin innagaa isku mashquulayno wakaa hadafkii halkaa aan eegno aan wada daawanno aan tallaabsanno hore aan u soconno daacadnimo aan isku nimaadno aan guulaysanno hore u socda waan guulaysanaynaa dad baynu noqonaynaa akhlaaqdayna aynu hagaajinaynaa diintayna wax u taraynaa waalidkeenba wax u taraynaa nafayna waxnu taraynaa wakhtigiina ilaaliya maxaa guusha lagu gaadho wakhtigaaga ilaali adeer haddayd habeenkii 5 saacadood aad ku mashquuliso wakhtigaaga adeer walbaad iibsatay haddaad wakhtigaaga ka faa'iidaysatana maxaad iibsatay adeer farxad baad iibsatay saacadda kaa luntahay adoo imtixaan kuu yaalay haddaad wax kale ku mashquusto walbaad iibsatay isku fiirso haddaad guulaysato ood wax xaqiijiso waad farxaysaa alxamdulilah waan guulaystay maanta casharkaana waan akhristay exaamkii la ii soo diray waan ka shaqeeyey waxba iima xarin alxamdulilah si fiican baan u seexanaya laakiin haddaan 4 saacadood heblaayo la sheekaysto beri anoo loonayaan dugsigii tegey jaamacaddii waxa lalahaa ma garanayo imtixaankiisii yuroo baan keenay walwal baan iibsaday dagaal aan marka hore dibadda iga joogay baan naftayda u soo raray adeer dagaal naftaada u soo rarin ammaan naftaada u door markaad naftaada aad amniga naftaada sugto ayaad bulshada kalena amnigayga aad sugi kartaa laakiin haddii halkanba adiga dhexdaada dagaal ka socdo adeedee bulshada waxba uma qaban kartid in biyo lagu rusheeyaad u baahan tahay war ma dadaalnaa kor ma u soconnaa ma isjeclaannaa anugu haddaba waana jecelahay oo telesoon bayna jecelo markhaataan igahay oo waana wada jecelahay شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي